Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qaaliga soo dhawaada, kuwii hore nala joogay, kuwa hadda kusoo biiraba. Maanta waxaan ka hadli doonaa, waxaan bilaabanaa daruusaad ku saabsan barashada luqadda Ingiriishka. Maanta waxaan ka hadli doonaa feelinka ama verb to be ayaan ka hadli doonaa. Haddaa nagu cusub tahay, subscribe inoo taawo. Haddaa hore nala joogtana, like-ta iyo share-ta iyo commentiga. I am happy, anigu waan faraxsanahay. I am sad, anigu waan murugeysanahay. I am hot, anigu waan kululahay. Aisha baa waxay tiri, Ali is happy, Ali wuu faraxsan yahay. Ali say, Aisha is tired. Ali baa wuxuu yiri, Aisha way daalan tahay. Ali say, Aisha is hungry. Aisha way baahan tahay. Markan waa su'aal iyo jawaab. Aisha say, are you hot? Markii aad la hormariyo, su'aal bay isku bedelaysaa, question mark baa fuulaya. Ali baa ugu jawaabay. Ali say, yes, I am. Not am. Ma soo gaabinaysid. I am. Ali say, are you cold? Adig qabow ma dareemaysaa? Aisha say, yes, I am. Haa, waan dareemayaa, qabow baan dareemayaa. Verb to be waxaa ka mid ah am, is, are iyo kuwo kale. I am, adigaas ka hadlaya. I am cold, qabow baan dareemayaa. She is tired, iyada way daalan tahay. He is happy, isaga wuu faraxsan yahay. She is. Marka she is waa la soo gaabiyey oo sharti ka taala isticmaalo. Waxaa leeyahay she is. I am meesha ka dhihi lahayd I am. He is meesha ka dhihi lahayd his. We are were. So marka waa la soo gaabiyey sharti ka taala isticmaalay. Mostly erayadana la isticmaalay she is, am, his, were. Saas oo kale. Su'aal baa lagu weydiiyey, are you a student? Question mark ka ilaaway. Are you a student? Yes, I am inaad dhahdaa la rabaa. But not say hadhihin I am. Ha soo gaaban sharti ka taa isticmaal micnaha. I am isticmaal, okay? Waa ku mahadsantahay daawashadaada. Haddaa halkan soo gaartay, videoga inoo like gare, la wadaag asxaabtaada. Qof daneynaya barashada luqadda Ingiriishka. Haddii tahay ilmaad waalid u tahay, haddaa adiga tahay, haddaa levelkan aad ka sareysidna, insha Allah waa soo gaari doonaa levelkaaga. Thank you for watching.